بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan had iyo jeer maqalnaa iyadoo dhalinyaro lagu leeyahay waxaad tihiin hogaamiyaashii baritoole amaba kuwa markaa xilka haya ay leeyihiin waxaan hogaamiyaashii maanta. Su'aashu waxay tahay marka xil iyo mansab la helo la qabto ayaa hogaamiye la noqdo oo mansabka ayaa qofka hogaamiye ka dhiga mise qofku marka hore isagoo hogaamiye ayuu xilka qabtaa. si aan jawaabta su'aashan u helo waxa sheegi doona 5 arrimood ama shuruudood oo qof hogaamiye ka dhiga haddii qofku iska helana uu marka aanu u baahnayn inuu xil hayo ee uu sida hogaamiye ku yahay. 5 arrimood waxa kala yihiin ta koobaad waa tiro. waa inay jiraan tiro dad ah oo qofku hogaaminayo. tiradaas waxay ka bilaabantaa hal qof mana laha bardhamaad. halka qof waa qofka naftiisa. marba haddii qofku naftiisa hogaamin karo cid kalena uu hogaamin karaa. bardhamaad ma lahayo waxa laga yaabaa qofka xataa isagoo dhinto nooleen in hogaamintiisu shaqayn karto oo saameyntiisa wali sii jirto iyo fikradihiisa. qodobka labaad ee qof hogaamiye ka dhiga waa tayo. tayadu waa midka hogaamiyana ka dhigta hogaamiye wanaagsan midna ka dhigta hogaamiye xun. taasoo ku salaysan iyaduna 2 arrimood oo ah dhowr arrimood aan idhaahnay oo ah akhlaaqda oo ah marka qofka inay iswaafaqsan yihiin had iyo jeer wuxuu sheegayo iyo wuxuu sameynayo inuu yahay qof run sheega oo wax lagu aamini karo. waxa kale oo kamid ah waxyaabaha tayadaas sababa ama xumaantaas iyo wanaagaas kartida. qofku kartida uu leeyahay shaqada uu marka hayo sida uu horumarinayo marka aqoonteeda iyo xirfadeeda uu baranayo mid jireed iyo mid maskaxeed iyo mid xirfadeed intaba. waxa kale oo kamid ah waxyaabaha tayadaad kor u qaada hal abuurka inuu hogaamiyo ama qofku had iyo jeer uu leeyahay hal abuur iyo hindisaadu marka ku horumarinayo kolba shaqada uu hayo iyo meesha uu joogo markaas uu doonayo inuu ka sii gudbo ka sii guuro meel ka qurux badan u hiigsado. arinta saddexaad ee qof hogaamiye ka dhigta waxa weeyaan mashruuda saddexaad waxa weeyaan tilmaan. hogaamiyuhu waa inuu leeyahay tilmaan. tilmaantu waa hiraal. waa inuu jiro wax had iyo jeer qofka u muuqdo mustaqbalkiisa fog iyo kiisa dhowba. tilmaamtu waxa weeyaan midda qof amba hogaamiye haddii ay ka soo horbaxaan 5 wado tusaysa midda uu raaci lahaa waa yaqaanaa midda qaadi lahaa. halka laga yaabo qof kale inuu ku dhex wareerayo tuu raaci lahaa. hogaamiyaha aan tilmaamta lahayn ama qofka tilmaamta leh hiraalka leh waa sida doon badweyn lagu sii daayo oo kaleeto. doontaas oo lahayn haba yaraatee naaquude iyo jiheeye oo aan garanayn meesha socoto. doontaas dabcan dabeeshu kalba dhinacan bay u qaaday. laakiin haddii doontu naaquude leedahay jiheeyena leedahay garanaysana meesha u socoto doontaasi waxay ku hagaagi doontaa meesha ay tagaysay. saa daraadeed waa inuu yaqaan hogaamiyuhu meesha uu tagayo iyo sababta uu tagayo labadaba. waa tilmaan ayuu hogaamiyahaas ku socda. arinta saddexaad ee qof hogaamiye ka dhigta waxa weeyaan waa tubta weeyaan amba arinta afraad aan idhaahdee waa tubta. hogaamiye had iyo jeer uu yaqaanaa tilmaamtii uu haystay tubta uu mari lahaa. tubtaasina waxay ku dhisan tahay 2 arrimood oo muhiim ah oo midna ay tahay hadafka midna ay tahay qorsheyntii hadafka la qorsheynayo. hadafku waxa weeyaan waa buundada isku xidha qofku marka meesha uu taagay maanta iyo meesha uu hiigsanayo. waa jaranjarada uu marayo. waa qorshayaasha joogtada ah ee maalinlaha ah ee weeklaha ah ee sanadka ah ee noloshiisa dhan qofka ah ayuu qofku qaabeynaya mar walba oo u sameynaya hadafkii uu ku gaari lahaa. arinta shanaad ee u dambaysa waa tacabka weeyaan. had iyo jeer hogaamiyaha qofka ahi uu yaqaanaa tubta uu samaystay inuu caqabada kala kulmi karo. halka qof kale laga yaabo inuu cabsado baqo is yiraahdo haddaad comfort zone-kaaga ka baxdo oo arrimo waaweyn higsato bilaad fashilanta ama khasaare la kulanta hogaamiyuhu taas uu bareeraa oo ugu talagalaa caqabadaheedana markaa waa yaqaanaa sidoo uga baxayo. tacabku waxa weeyaan hogaamiyaha 2 arrimood haddii u gudboonaato midda daran ayuu doortaa. tusaale haddii arrin adag iyo arrin fudud ee uu iskugu timaado wuxuu dooranayaa arrinta adag. haddii arrin naftu jeclaysanayso iyo arrin naftu ay diidayso ee la soo gudboonaato wuxuu dooranayaa midda ay naftu diidayso ee dhibsanayso. had iyo jeer naftu waxay jeceshahay inay iska fadhido oo aan isdhibin oo waxyaabaha ay jeclaysanayso fun and easy ay doorataa. halka markaa uu isagu ka doorbidayo waxyaabaha adag ee markaa aan naftu jeclaysanaynin kuwaas oo og yahay waxa uu ku gaadhayo ku helayo. 5 arrimood oo qofku la yimaado had iyo jeer uma baahna shuruud inuu xil hayo iyo inuu masab hayo toona. taasoo qofku ku dadaalayo kolba tiir ka mid ah 5 haddii uu ku liito inuu horumariyo. waa ta koobaad oo tirada ah, ta labaad oo tayada ah,
ta saddexaad oo ah tilmaamta, ta afraad oo tubta ah, iyo ta shanaad oo ah tacabka. inta muuqaal xiga iskugu imanna waa aniga Ibraahim waa bari oo idin la aad ba mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.